Assalaamu calaykum. Rabitaanka insaanka iyo runta dhabta ah. Ma ogtahay goob iyo waqti ama qof kale in ay kuu xumaadaan iyagoo cid kale u wanaagsan, ama kuu wacnaadaan iyagoo admi kale la liita? Taas maxay tahay sababteedu? Dunida sideedaba ma ahan goob ku habboon raaxada, marnaba ma buuxinayso baahiyahaaga dhabta ah. Waxaad arkaysaa qof magaalo neceb, wuxuu ku nacay dhacdo aan la mahdin oo maalin ku dhex martay, iyadoo mid kalena uu ku jeclaaday maalin dhacdo kula kulmay. Qalbiga aadanuhu waa qalbi wixii lagu shubto laga helo. Si kastuu u qalafsan yahay, taas waxay ku tusaysaa qof aadan jeclayn ama aad u aragtid aragtidaada qof aad u xun. In la fahmana ay adag tahay, ayaad arkaysaa qof kale oo kuu ammaanaya mararka qaar. Maxaa yeelay adiga waxa uu ku tusay wax aad ku nacdid, kan kalena wuxuu tusay wax uu ku jeclaado. Haddaynan aqoonsan cidda aynu nahay, waa inagu adkaan doontaa inaan si xor ah u noolaano. Waa inaad og tahay inaad leedahay dhowrkan arrimood oo lagugu imtixaamay inaad yeelatid. 1. Ilowsho dabiiciya, waayo magaceena ayaaba ah ilaawe oo ah insaan. 2. Degdeg dabiiciya, waa aayad Alle subxaanahu wa tacaala uu Qur'aanka ku sheegay oo leh insaanka waxaa laga abuuray degdeg. 3. Jaahilnimo dabiiciya, annagoo fal suban doonayno ayaan midkii xumaa falkinaynaa. Marba haddaan intaas sifo leenahay, waxaa muhiim ah inaan habdhaqankeena wax weyn ka beddelno si aan nolol xur ah ugu noolaanno. Waxaa la inkiri karin inaan u baahannahay cid aqoon leh, annagana na caawin karta in aan helno, waana Allah subxaanahu wa tacaala.